kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel ka soo joogtaan soo dhawaada halkan waxaan kula wadaagi doonaa dhalinyaradii maanta lagu xasuuqay magaalada Muqdisho iyo waliba mudaharaadkii kala duwanaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho haddaba waxa uu salka ku hayay mudaharaadkii maanta oo dad badan oo shacab ah kadibna loo qabtay booliska Soomaaliya oo ku dhawaaqay in gacanta ku soo dhigeen ragii ka dambeeyay dilkii maanta loo geystay dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxba aan galabsan ee sida xaq darrada ah loogu dilay ama loogu toogtay gudaha magaalada Muqdisho barnaamijkan waxay la falanqeyn doonaysaa markaana arrimahan si weyn oo la socdo saaxiibkay dafle ma kor soo dhaw maanta magaalada Muqdisho waxa ka dhacay dilal kala duwan oo toogasho ah waxaan kula arkaynay in shacabku ay mudaharaad ay qaadeen booliskana ay ugu jaabeen rasaas nool ila dhacayeen dad badan oo shacabna kadib ay u taxaabeen maxaa xarumaha booliska ama saldhigyada booliska mahsanid mudane bidaan waad ku mahadsantahay barnaamijkeeda adigu soo dhaweysay saaxiib kulley bidaanow waxaa soo baxday dhalinyarada hala laayo si fiican dhalinyarada hala laayo iyo horta soo baxday hooyo ilmaheeda ku soo korisay qoryo iyo yaanyo oo wixii aruurisay bajaaj ugu gatay hooyo tahriibin hooyo inoo shaqee dhulkaaga hodan oo ka noolow ay lahayd yaa horta wiil yar oo askari oo bahash taambug iyo qaad ka soo dhagay iyo waxyaalo kale xashiish waxyaaba darogada cunaba iskaga barbaranaya si fiican dowladdiina min heer madaxweyne ilaa agaasimyaalna way fiirsanayaan oo طبعا waxay isleeyihiin hanoo ilaaliyaan baan kulli طبعا markaan saa u cabiray cadu wax naga ilaaliyaan bay ka wadaan oo micnaha anagu meeshaan ka xamaalano bay ka wadaan si fiican ciidan beeleeyeen hal sahal iyo طبعا ka wadaan bidaano maanta saddex wiil oo dhalinyaro ah ayaa hortu magaalada Muqdisho iyo 6 siyaalo kala duwan horta loogu dilay waliba waxa waliba u sii tiraya badnaa wiil bajaaj wada oo hooyadii iyo gabadh la dhalatay la saaray bajaajta oo saaka soo isaaq doonay ayaa wiil askari ah si xarag kibir ah yuu istaag sawu istaagay markuu istaagay bay hadda wax isla dhaafeen ma garanayne bahal beekema oo lagu talagalay cadowga fog in lagu garaaco ayuu dabada u qabtay ninkaas laakiin beek amkood sama fiican in la geeyo furimaha xardheeri malaha dabcan ciidanku ma halka laba wada geeraayee ma hadii ninkan qubaysan magaalada dhaxay taagan xuma dabcan magaalada lafteeda hawlaha ka jira laakiin ka badan magaalada dhex joogo ma isaad ogtay magaalada dalku waa dal colaadeed oo colaadu way taagan xilli kasta iyo saacad kasta ay bilaabi kartaa saa darteed ciidanku inuu heegan uu ku jira mar kastaba laakiin ciidankii way ka tambatay ciidankii hurda ayaa ka tambatay marka waxay isku dayeen inay darooga ay cunaan si ay u soo jeedaan in badan markuu ay in badan soo jeedaan bidhaano saad ogtay qofku haddii uu seexanin registerka maskaxda qaabka uu shaqeynaya si fiican wisrogaya saa darteed bidhaano wiilka dilay askariga ah baakan buu cunuga dabada u qabtay cunugii bajaajta waday maskaxdiisii hadda qori beeka ma taqaanaa Beckham waxa lagu talagalay horta soo ogtay Beckham afaarihiisa 5 xabo isku mid kuma dhacdo way sida faraha oo la fidiyay isgaraboodan xabad Beckham iska day xabad Beckham khatarta 7 kilomitir loo talagalay inay gaadho iyo horta ninka la dhacay wiil la dhacay afsar oo dhigay marka qaar lidka diyaarado noqo oo la soo bidaan oo baas waxa taqaan qaabka hubka wax noocaas wiilkii maskaxdiisii way soo duushay hooyada dhabteeda ay ku daatay maskaxdii halkaasi waxa saaran hooyo wiilka dhashay iyo gabadhii la dhalatay wiilkaasi waxa la sheegay wiilkaasi madi buu ahaa dadku sii sheegayaan gabadhaas wiil ahaan oo la dhashay kaasi ka fiirsanayeen halkaasi waxa ku jirta dhowr qodob psychological markii loo nafsaani reerka asaga hooyadii gabadha ka kooban caaqibada ma inay iimaanku u celi waa gaar waa waxay goobjoog u ahaayeen walaalkood ugu hordilay maskaxdiisana ayaga dhabta ku soo daatay horta maanta halkaas ka dhacday qisadaas dhacday
askarta markastana madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo gaashaandhig iyo taliyaha ciidanka wax oo dhan ba haday noqoto taliya xajaar ha noqoto odawaa ha noqoto nabad sugida oo ninkii la jiray laakiin ma salaad laakiin maxay tahay sababta markasta loo beegsado dhalinyarada inta badan bajaajta ku shaqeysto waxaan ognahay magaalada muqdisho in gawaari kala duwan ay ka shaqeeyaan beelada ka shaqeeyo mootooyinka caadiga ka shaqeeyo laakiin inta badan waxaan aragnaa bajaajta in mataqaanaa la si gooni ah loo ugarsado okay bidaan oo horta saad ogtahay magaalada muqdisho dad tagtiyada kalaba dhalinyaradan bajaajta wata laftooda kuwa sahal ma aha meeshan cadow baa jira bajaajta saaran oo dadka ay laftii gumaadaya askartu marka waxay dhahaysaa bajaajta jooji bajaajtana waad ogtahay kun luuq bay ka dusaysaa luuqyo mararka qaarkood xidhan iyo ka soo boodaysaa marka ninka askariga ah anigoon askariga sabood garanaynin ana dhaliilaynin dhan amni ayuu maxaa laga yaabaa bajaajta ordaysa inuu barjaawta uu yiraahdo u joojiyo kana u dhaafo hadda ma cadowgiiba mise qof caadi ah ma kala garanaysa saa darteed dad waxay khasbi inuu askari xabad u rido askartan marka askarta aad loo soo tababaray oo sadogta Bidano askarta Turkiga lagu soo tababaray Turkiga lagu soo tababaray askarta marka halka xabad ay ridaan waxa lagu talay in qof ay seeraynin qodii uu ku rido qof ku dhicay way ku dhici khasab qofkii ishu ka toganba waa nima aad loo soo tababaray ha noqoto haramacad ka noqoto waran iyo gaashaan iyo rag gorgor loo yaqaan waxa noqoto ha noqoto ciidanka horta ciidan aad loo soo tababaray weeyaan oo muruq iyo maskax u turku bixiyay midda Bidano dilka dhalinyarada way socotaa maan la weyti waa kii balcad wiil lagu dilay waa kii magaalada muqdisho nin odayo ganacsato miskiin ah 5 kilo dilo waa garanaysaa niyo horta musiibo ayaa jirta quraanka Ilaahay wuxuu ku leeyahay ma asabi musiibatin fabima kasabat aydiikum wa ya'fu an kathiir horta musiibada dhibaatada anaku diin la'aan baan ugu dhacay Soomaaliya wayo diintii ka baydeen askartan hadii la dhihi lahaa salaada tukada oo cibaadaysta oo cadowgiina la ogaada dhalinyarada la dhihi lahaa war Ilaahay idinku ka cabsado irsaaqada rasuul askar baa meesha joogtay la socdo markii joogsada in yiraahdo joogsada hawsh way isaaga lahayd laakiin laba kala war la horto wixii dhammo ka baxay meesha hadda waxaan maqlayaa oo maanta waan arkahayay taliya shuute ninkii maxkamadda oo leh hadii uu madaxweynaha uu dekreeto soo saaro taas uu ku metel ama kaga hadlayo dhammaan askarta Soomaaliyeed ninkii wax dila wala dilaya haduu mar hal go'aan ka soo saaro waa khalaas go'aanka uu meel maraya askari wax dili doona ma jirto hadda maanta waxaan ka madaxweynaha inta badan uu ka hadlayo fagaareesha uu sheegay qof dil wala dili طبعا ساد ogtahayba laakiin dekreeto ma soo saarin dekreeto waxaan rabaa waxay inuu bayaan soo saaro arinta uu kaga hadlayo loo qaybiyo laamaha kala duwan ee ciidanka iyo maxkamadaha ayaa horta loo baahan yahay laakiin ma soo saarin dalku wuxuu ku jiraa maashalow ama xal tawaari ama waxyaalaha xaalad degdeg ku jira dagaal baa socda waad ogtay maanta dagaaladii dhacay ka dhacay jiraan Cabdullaahi Kismaayo duleedka ka dhacay waad ogtahay Hiiraan ka socdo waad ogtahay ceelbuur waxyaabaha ka socdo ogtahay dagaalku marka waa non stop weeyaan dagaalku socda marka saadartay dhalinyaradu way war la abahay dhalinyarada oo sababta wiilkan yarka ay meesha fadhiya dhaxanta iyo